Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Isku soo noqod wanaagsan asxaab qiimaha qaayaha badan meel walba dunida ka kala joogtaan. Aad iyo aad baan idin salaamaya. Waxaan rajaynayaa caafimaad iyo barwaaqo. Waxaan soo gaarnay argumenteeni 15aad qaybtiisa labaad qaybta quiz-ka ee barashada batentibiga. Sidaad ogtiin bore waxaan soo sameynay dhammaan argumenteeshka hooseeya kan 15aad laga soo bilaabo kan koowaad ilaa kan 14aad qaybood faahfaahintii qaybooda quiz kan markaan dhameeyno 15aad waxaan sameyn doonaa argumenteesh kale oo ku sii xigay ilaa aan ka dhameeyno 25 argument anagoo ku fasirayna af Soomaali. Okay, waxaan uga hadlaynaa norme sul sorbasso, qawaaniinta sorbaasada ama gawaarida kala hormarayo. Okay, ka bogasho wacan muuqaalka like noo saara asxaabtiina kale la wadaaga aad iyo aad wada mahadsantiin. La manovra di sorbasso non va effettuata se lo spazio visibile risulta insufficiente per completarla in sicurezza. La risposta vera è perché la manovra di sorbassata non va effettuato maahan in la sameeyo se haddii lo spazio space visibile oo aragtida risulta uu yahay mid insufficiente aan ugu filnayn, yani wado luuq adag soo baxay oo kale laga hadlaa mogta ama wado zigzag ama curva adoo sorbaasa ku sameynay. Per completarla in sicurezza macnaha haddii space kuusan ugu filnayn lama ogolo in la sameeyo sorbaasada oo dhabeero. Okay, se si viene sorbassati mentre sopraggiunge un veicolo del senso opposto occorre tenere accesi i proiettori abbaglianti come segnale di pericolo. La risposta falsa è se haddii uu dhahay viene sorbassati oo ay noqoto in la baaso qof uu damco inuu na baaso mentre sopraggiunge iyadoo naga hor imaanayso un veicolo gaari del senso opposto wadada naga horeysa occorre waxay ahaanaysaa tenere accesi inaan daarano ama aan shidano i proiettori abbaglianti nalka awoodiisa saraysu dhahay come segnale di pericolo sida signalka calaamada khatarta oo kale. No, falso è perché markaa aragti inuu gaari ku baasayo adigana wadada gaari kale ka hor imaanaya aragtid oo isleedahay labadan gaari ama isku dhacan waxaa isku badinaysaa dhanka midig. Okay, laakiin nal daarana falso è. Nella fase di rientro del sorpasso in autostrada il conducente deve distanziarsi di almeno 100 metri del veicolo sorbassato. Nella fase di rientro marka aan rabno yani gaariga baastay waxaa rabtaa wadadii midigta inaa kusoo laabato. In autostradana aan saarnaa il conducente darawalka deve distanziarsi waa inuu ka fogaadaa wili gaariga uu baasay marka hore 100 kilomitir camal intuusan gudaha soo gelin. falso waa mar haddaa gudubto xataa 10 metri kadib waa soo geli kartaa. Okay, il conducente del veicolo da sorbassare ha l'obbligo di inserire la marcia più basse per facilitare il sorbasso. Il conducente darawalka del veicolo oo gaariga da sorbassare oo la rabo in la baasayo ha l'obbligo waxaa waajib ku ah di inserire inuu geliyo le marce più basse oo aad u yar, yani number 1 camal inuu geliyo waa in mogtahay per facilitare si uu u fududeeyo il sorbasso gaariga kale oo ka hormarayo. No, adiga markaa aragta gaari inuu ku gudbayo oo ku baasayo ihsaana u sameyn kartaa si uu u gudbo speedka yareynaysa, laakiin obbligo di marshada ugu yar falso. Okay, non è obbligo. La manovra di sorbasso si effettua anche se lo spazio visibile risulta insufficiente per completarla in sicurezza. Falso è. Waayo hadday wuxuu dhahay non va effettuata hadda wuxuu dhahay si effettua waa la sameyn karaa anche haddii uu dhahay se lo spazio haddii space visibility oo aragti ahaan wadada uusan nagu filnayn. falso waa sorbaas markaa sameynayso wada toos waa inaad saaran tahay gaariga aad gudbayso marka hore dhinacaas ku badinaysaa horaa fiirinaysaa in spaceka uu kugu filan yahay wada ciriiri ama wada qolooco waysan kaa horeynin kadib aad baasaysa. Okay, falso. Il conducente del veicolo da sorbassare ha l'obbligo di azionare la segnalazione luminosa di pericolo, lampeggio simultaneo di tutte le frecce per segnalare che la strada si ingombra. Ma secondo voi una cazzata o è falso?
Il conducente che intende sorpassare deve accertarsi che la strada sia libera per consentire la completa esecuzione del sorpasso. Il conducente idraulico che intende sorpassare oo rabo inuu sorpasso sameeyo deve accertarsi waa inuu xaqiijiyaa che la strada wadada sia libera inay banaan tahay oon gali karno. Per consentire taasoo noo ogolaanayso macnaha la completa esecuzione ficilka macnaha sorpassada inaa si abni aan ku dhamayna camal beer waay, okay? Prima di rientrare nella corsia di destra dopo il sorpasso occorre controllare la posizione del veicolo sorpassato attraverso gli specchi retrovisori, vero? Perché gli specchietti retrovisori. Allora, prima di rientrare marka aan gaari baadsno kadib inta aanan kusoo laaban dhanka midig da destra dhanka midig dopo il sorpasso marka aan sameyno sorpasska occorre waxay ahaanaysaa controllare inaan control ku sameyno la posizione del veicolo gaariga sorpassato oo aan ka hormarnay attraverso anagoo adeegsanay le specchietti retrovisori miraayadii yacni gaariga baastay marka aad kusoo noqonaysa gaariga waxaad fiirinaysaa muraayada gaariga inaan isku soo dhaweyn beer, okay? Il sorpasso è vietato se si è costretti a superare la linea longitudinale tratteggiata. Il sorpasso è vietato waa mamnuuc yiri sorpassada se si è costretti haddii qasab noqonayso a sorpassare inaan dhinac u dhaafno la linea calaamada longitudinale oo dheer tratteggiata goosgooska falso la calaamada goosgooska waa la dulmari karaa markaa sorpasso sameynayso, okay? Mamnuuc ma. Il conducente del veicolo che viene sorpassato deve agevolare la manovra di sorpasso e non accelerare. Il conducente idraulico del veicolo gaariga wata che viene sorpassato oo la baasay ama laga hormaray deve agevolare waa inuu fududeeyaa la manovra di sorpasso sorpassada, yacni anoo gaari wataa iga daba imaanaya inay baastaa rabtaa ani waa inaan kuu fududeeya speedki yarayaa haddaa 5 ku socoto 4 waa inaan geliyaa si aan kugu fududeeyo, okay? E non accelerare sidoo kale waa inuu speedka maxaa la yirahdaa uusan badinin beer waay. È vietato il sorpasso di un autobus fermo per la salita e la discesa dei passeggeri perché è vietato waa mamnuuc yiri il sorpasso in laga hormaro di un autobus bus yiri fermo oo taagan per la salita e la discesa dad korayaan ama ay ka deganayaan dei passeggeri falso waa baska hadduu taagan yahay waa baasi kartaa, okay? Non si può sorpassare in corrispondenza dei dosi su carreggiate a senso unico a 2 corsie falso è stato prima perché wuxuu yiri non si può lama sameyn karo sorpassare gaari kale lagama hormari karo in corrispondenza meel ay ku taalo ama ay ku yaalaan dei dosi dalcadaha su carreggiate wadada senso unico wada senso unico a 2 corsie 2 corsa falso wadada hadday senso unico tahay wax macneed waxa way hal jihay u socota gaari kale kaama hor imaanayo marka sorpasso waa ku sameyn kartaa, okay? Nella fase di sorpasso il conducente è tenuto a segnalare continuamente con l'avvisatore acustico l'effettuazione della manovra. Una cazzata. Nella fase di sorpasso marka la baasay il conducente idraulico è tenuto waxaa qasab ku segnalare inuu sameeyo continuamente si aan kala go' lahayn con l'avvisatore digniinaha macnaha midka digniinta sameynaya acusticos hoonku waa moogtahay gaariga marka gaari kale markuu baasayo kale waa inaan hoon yeeriyaa si aan kala go' lahayn. L'effettuazione della manovra una cazzata waa falso, okay? Allora, la distanza di sicurezza va rispettato anche quando si inizia la manovra di sorpasso. La distanza di sicurezza va rispettato waa in lagu dhaqmaa sidoo kale quando markii si inizia la bilaabayo ama la sameynayo la manovra di sorpasso vero waa saad qiimaa badan distanza yacni gaariga abaastay waa inaad ka fogaataa kadib koorsada kusoo laabataa. Il sorpasso si effettua tenendo un'adeguata distanza laterale del veicolo che si sorpassa. La risposta è vero. Il sorpasso si effettua waxaa la sameynayaa tenendo un'adeguata distanza anagoo qiimeynayno distanza ama masaafada laterale oo dhinaca del veicolo gaariga che si sorpassa yacni gaariga markaa baasayso
waa inaa xoogaa ka fogaataa gudubtaa kadib koorsada kusoo laabta. laakiin gaari haddaa baastoosan aada ugu soo dhawaata inaad isku dhacdaana macquula. marka waa in distansaar lateraale geeska xataa la qiimeeya beero. Okay? È consentito il sorpasso in prossimità o in corrispondenza di passaggi a livello senza barriera se la circolazione è regolata da semaforo. È consentito alla ogolya il sorpasso in gaari laga hormaro in prossimità meel uu ku yaalo meel u dhow ama in corrispondenza meel uu ku yaalo di passaggi a livello senza barriera oo birna lahayn wadada xireed. Se haddii uu yiri la circolazione su socodka ee regolata lagu kala hagay da semaforo beer waaye. semaforo hadday tahay oo semaforkaaga cagaar uu yahay waa gudbaysaa. Prima di iniziare una manovra di sorpasso occorre azionare l'indicatore di direzione. Prima di iniziare inta aanan bilaabin sorpassada occorre waxay ahaanaysaa azionare inaan daaran l'indicatore di direzione fareejada beer waaye. fareejo markaa gaari markaa baasaysa markaa baakin gelinaysa markaa leexinaysa intaba fareejada waa qasab iyo markaa dhaqaaqayso. Il sorpasso a destra è consentito quando il filobus è fermo per la salita e la discesa dei passeggeri, anche se non esiste salvagente. Falso è il sorpasso cormarida destra o dhanka midig oo macnaha laga baasayo è consentito alla ogolaya quando markii uu yiri il filobuska è fermo uu taagan yahay per la salita dad ay korayaan e la discesa ayna ka dedeganayaan dei passeggeri dadka rakaabka. Anche حتى يقول se non esiste adesso già in salvagente. Falso è, ok? Il conducente che intende sorpassare deve unicamente accertarsi che non vi sia nessun segnale di divieto di sorpasso. Falso è perché deve accertare tante cose in meeshaas sorpasso mamnuuc ka ahayn in maxaa la yirahdaa gawaari kale kusoo jirin in wadada maxaa la yirahdaa dhibaato waxaas oo dhan inuu fiiriyo. Okay? È vietato il sorpasso se si deve valicare la striscia longitudinale bianca e continua, semplice o doppio. Falso è vero secondo me, perché wuxuu dhahay è vietato waa mamnuuc il sorpasso in sorpasso la sameeyo se si deve haddii valicare aan dulmarayno la striscia calaamada longitudinale oo dheer bianca cad continua oo goosgooska inaan semplice halka xabaa oo doppio ama labada calaamado cadaad beer waaye. Okay? waxaan manualka hore ugu soo aragtaan sooma. Il conducente che intende sorpassare deve accertarsi che la visibilità sia tale da consentire la manovra. Il conducente darawalka che intende sorpassare inuu gaari baasa rabo deve accertarsi waa inuu xaqiijiya che la visibilità aragtida wadada sia tale waa inay ahaataa mid da consentire noo ogolaanaysa la manovra noo saamaxaysa beer waaye. Okay? Dopo il sorpasso bisogna rientrare immediatamente a destra rallentando. Vai casino, è falso perché dopo il sorpasso marka aan sorpasso sameyno yiri gaari aan ka hormarno bisogna waxaa loo baahan yahay rientrare inaan kusoo laabno koorsada midig immediatamente sida ugu dhaqsida badan a destra dhanka midig rallentando anigoo qaboojinayno gaariga speedka. Falso perché gaariga baastay haddaa intaa ka hormartaa speedka qaboojiso shab waay mut. Falso. È consentito il sorpasso a destra nella intersezione regolata da semaforo se il veicolo da sorpassare ha indicato di voler svoltare a sinistra ed è iniziata la manovra. Esatto, vero è. È consentito alla ogolyahay il sorpasso in sorpasso laga sameeyo destra dhanka midig nell'intersezione meesha isgooska ah regolato kaasoo lagu kala hagay ama lagu kala sharciyey da semaforo se haddii uu dhahay il veicolo gaariga da sorpassare aan rabna inaan baasno ha indicato uu nagu wargeliyay yani fareejada laga hadlaa moogtahay di voler svoltare inuu u leexdo uu rabo sinistra dhanka bidix ed è iniziato già uu bilaabay la manovra beer waaye. gaari haddii uu macnaha bidix u leexanayo midig adigoo waa baasi kartaa. Su carreggiate a due corsie a doppio senso in prossimità da un doso è consentito sorpassare veicolo a trazione animale. Su carreggiato o due corsie laba corsa a doppio senso labadaas koorsana mid hore u socod midna ka hor imaanaysa in prossimità meel u dhow di un doso dalcad
è consentito waxaa la ogolaya sorpassare inaan baasi karno veicolo gaari attrazione oo jiidaya animale dameer ama faras falso waay mar haddii wadada doobio sense ay tahay lacagna ka horeyso sorpasso ma samayn kartid. È consentito il sorpasso sulla corsia di accelerazione purché la manovra venga effettuata con attenzione. È consentito waa la ogolaya il sorpasso in sorpasso lagu sameeyo corsia di accelerazione. Corsia di accelerazione waxaa la wadada highwayga koorsada ku gridayso. Purché waxaa muhiima la manovra venga inuu ahaado effettuata mid lagu sameynayo con attenzione foojignaan no. Haddii marba wadada ay tahay corsia di accelerazione e decelerazione sorpasso laguma sameyn karo falso. La pericolosità del sorpasso è determinata dalla ridotta larghezza della carreggiata. Esatto, vero. La pericolosità khatarta del sorpasso oo sorpassada determinata waxaa dhalinaya mararka qaar dalla ridotta larghezza ballac yar della carreggiata wadada, vero. Wadada haddii ballaceeda uu weyneyn nagu filnayn labadii gaarina ay rabaan inay isbaasaan waxayna isku dhacaana macquula. È vietato il sorpasso in prossimità degli ospedali. È vietato waa mamnuuc il sorpasso in sorpasso lagu sameeyo in prossimità meel u dhow degli ospedali ospitaalka. Perché? Falso waay. Ospitaal agtiisa waa sorpasso waa sameyn kartaa laakiin mar walba waa inaad foojignaan sameysaa. La manovra di sorpasso deve essere eseguita da destra a destra se il conducente del veicolo da sorpassare ha segnalato l'intenzione di voler svoltare a sinistra. La manovra di sorpasso sorpassada deve essere waa inuu ahaado eseguita mid laga sameynayo a destra dhanka midig. Se haddii uu yiri il conducente darawalka del veicolo gaariga da sorpassare oo wato macnaha gaariga aan rabno inaan baasno ha segnalato uu noo qeexay ama caddeynna siiyey ama maxaa la yirahdaa uu noogu digniin ahaan noo siiyey l'intenzione di voler svoltare a sinistra inuu rabo inuu dhanka bidix u lahado. yacni gaariga ka horeeya haddii uu dhanka bidix u leexan rabo oo fareejo dhanka bidixna uu daarto adiga midig waa ka baasi kartaa camal, vero. Okay. È consentito il sorpasso nell'intersezione regolata da agenti del traffico. È consentito waa la ogolaya il sorpasso in sorpasso lagu sameeyo nelle intersezioni meel isgoosa regolate kaas oo kala hagaya da agenti del traffico qof traffico ama booliisa. Esatto, booliiska hadduu dhahay adii soo gudub. Esatto, vero. Okay. Nella fase di sorpasso il conducente è tenuto a mantenere una velocità almeno doppia di quella del veicolo sorpassato. Falsissimo. Nella fase di sorpasso marka la sameynayo sorpassi il conducente darawalka è tenuto waxaa qasab ku ama waajib ku a mantenere una velocità inuu asigana ku socdo speed almeno ugu yaraan doppio mid laba jibaara di quella del veicolo midka gaariga asiga raba inuu baasi. yacni gaariyaa wadataa wadada saaran tahay markaa aragta gaari kale inuu ku baasi rabo haddii uu markaas asiga uu ku socday marshada saddexaad adiga marshada lixaad waa inaad ku socotaa waa ama almeno doppio. Okay. falsissimo la saxabay. casharkeena saas ayaan ku dhameynay waa argumenteeni 15aad qaybtiisa kuwiiska ee qaybta labaad. insha Allah dhowr qayb uu ka kooban yahay waan boobsinaynaa maalin kasta waan soo dhigaynaa si aan u dhameyno dhammaan 25 argumento. hadda waxaan fiirinaynaa natiijada. maasha Allah asxaabta qiimaha qaayaa badan sidii muuqataba casharkeena saas ayaan ku dhameynay waxna maana qaldin zero error. waa argumenteeni 15aad qaybtiisa labaad ee qaybta kuwiiska. haddii aad wada maasantiin waxaan u balnaa casharkeena xiga ilaa aan ka dhameyno dhammaan argumentayaasha. ballanteena waa guul insha Allah billahi kariim haddaan noolnahay. okay. guuleysta. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.